alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira. maanta waxa weeye waxyaalaha markaa hadda soconaya ee waxa weeye markaa ku saabsan dadka markaa ururadu ay kala jiidanayaan oo hadallada markaa waxa weeye markaa khatarta la isdhaafsanayo waa wax markaa albaab colaadeed tumaya. albaab colaadeed waa wax tumaya, khatarna ay u tahay amnigiiyo nabadgelyada inay wax yeesho ay khatar u tahay. hadallada noocaasana waa in aad iyo aad laysaga jiraa. oo ruuxii markaa waxaa laga yaabaa kelmaduu yidhi inay fitno dhasho, dabeedna fitnadaa ka dhalatay dhiigga ku daatay iyo wax masaa'ibka ka dhalatay waxaa dhici karta marka waxa weeye wax weyn inuu ka xambaarto. anugu gacanta waxba kuma dilin unaha odhan. qaar badan baa fitnada intay huriyaan haddana waxa weeye odhanaya anigu waxba ma dilin, yani saa odhanay. ilaahayna wuxuu yihi waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaؤuhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima. yani ku kastoo dila qof muslima ah xaalu u badrheerayo dila, ilaahay wuxuu ku abaal marinayaa oo ruuxa abaalkiisu yahay jahannama, xaaluu jahannamo ku waarayo. ilaahayna waa u cadhooday waana nacdalay, waxaana ruuxa u sugnaaday cadaab u xanuujiya. 5 ciqaabood baa laysu raaciyey. marka waxa way dadka muslimiintu inay fudaydsadaan ma aha. ruux kastooo fitnada ka qayb qaatay nasiibkiisuu ku leeyahay. hurinta fitnada la hurinayo ha la yska jiro. dadka waxa weeye markaa fitnada hurinaya ciday doonaanba ha noqdaane aad iyo aad waa inay uga taxadiraan. hadallada markaa qalbiyada dadka wax isu gelinaya, nacaybka isu gelinaya, isku kicinaya, yani waxa weeye qabyaaladii markaa soo noolaynaya, yani cadaawadii abuuraya, yani markaa dagaaladii waayadii hore markaa waxa weya yani xasuusinaya. oo waxa weeye ashyaada noocaas oo dhan waa in aad iyo aad laysaga jiraa. aad iyo aad waa in laysaga jiraa. wadano badan oo markaa doorashooyin galay oo fitnooyin aan damini ka dhasheen waa jiraan. meesha jazaa'ir la yidhaahdo, fitnadii weynayd ee ka dhacday ee dadka aadka u badani ku dhinteen, ee laga yaabo dadka ku dhintay inay 100 ku dhowaayeen, waxay ka dhalatay doorasho dhacday. doorashooyinka in la barakeeyo ma aha. waa dariiq markaa gaalo laga soo qaato marka hore baatila weeye. shareecada wax ku bannaan ma aha. islaamna sidan wax uma dooran jirin. waxay muslimiin qabeen ma aha. waa wax gaalo laga soo waariday. shareecada wax ku bannaan ma aha. gaala laynooga keeno. muslimiintu dariiqyada ay wax ku dooran jireen waa la yaqaanay. oo cidda markaa ummadda waxgaradka u ah ee ahlulxalli waalcaqdi la yidhaahdo, ee ummadda waxna u xidha waxna u furta, hadday tahay odayaasha, hadday tahay culammada waxgaradka, kuwaasaa markaa iyagu gaar u bixi jiray. kuwaasaa markaa soo saari jiray ruuxa mas-uul noqonaya. dadka yaga u indha ah, dadka wax magaratada ah in la kiciyo oo yaga la abaabulo. yani waxa weeye ariiqa noocaasi ariiq markaa sharciya ma aha. dariiq jiray ma aha. ariiq bannaan ma aha. waa fitno weeye. shar baanu xambaarsan yahay. gaalaana laga keenay. waa tashabuh bilkufaar, gaaladii oo la shabahayo. ummadda in kooxa loo qaybiyo oo la yidhaahdo yani xisbiye ayaa loo qaybinaya ummadda. intaas oo xisbiye oo tartamaya ayaa loo qaybinaya. oo dabeedna mid waliba markaysagaa qolada kale xumaanteeda sheegayo, mid walibana ka kale xumaantiisa sheegayo, si uu dadka u kala jiito. sumcadda kadib adigu soo jiido, anaa sidan iyo sidaa, anaa jac iyo mac wax ka dhigaya, kan kale waxba ma aha, yani ba iyo ta'toonna ma aha, sidan buu yahay, kan buu yahay, keer buu yahay. yani waxa weeye run iyo been la taxayo oo waxaa la akhrinayo. ummaddii colaad laysu gelinayo, laysku dirayo. yani waxa weeye tan noocaasi waa ariiq markaa xun weeye. waa fariq tasud. yani gaalada ayaa waxaa la yaqaana inay isticmaalaan ummadda qaybqaybi. aad markaa maamushide oo madax u noqotide. dadka qaar waxay yidhahdaan ariiqa fariq tasud ah waxaa la yimi ingiriis. saxse maaha, waa qalad. fariq tasud waa ariiqii fircawn. ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiyacan yastadcifu طaa'ifa. fircawn baa muxuu sameeyey? dee inuu ummaddii qaybqaybiyey oo qolo xukunka haysata iyo qolo waxa weeye u dullaysta ka dhigay. oo yidhahdo waa laga tiro badan yahay. yada markaa dhexdooda colaad laysu geliyo oo iyaga laysu jeediyo. tan noocaasi markaa shareecada meel kagama taro. qaybqaybinta ummadda la qaybqaybinayana mid bannaan ma aha. ilahay wuxuu ina amray ummaddu inay isku mid noqoto. wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. qabsada xadhigga ilaahay xaalaa dhan tihiin oo mujtabiciintihiin oo kulansan tihiin. walaa tafaraquu ha kala tegina oo ha tafaraaruqina. ururada la samaynaya waxay tahay iyo xisbiyada iyo guruubadu yani tafaruqi weeye. tafaruqaasina mid markaa mashruuco bannaan ma aha. siyaasadda markaa tafaruq in lagu sameeyaan bannaanayn oo guruubo ummadda loogu qaybiyo, layska hor jeedinayo oo iyaga laysku dirayo. in markaa ururo diiniya loo qaybiyaan bannaanayn oo waxa weeye ummaddii lagu kala qaybinayo. midnaba ma bannaana, laa bismi ddiin walaa bismi dunya. midnaba in lagu qaybqaybiyo saa la sameeyaa ma bannaana. marka dambe sida wax loo dooranayo ee dadku ay samaynayaan oo ku saabsan markaa dadku dhammaantood waa siman yihiin, gaal iyo muslimba. waxaa la eegaya un muwaatin ma tahay oo ruux watani ah oo muwaatin oo dhalasho haysta ma tahay, mise ma tihid. diintaa doontaba hayso, ama gaal murtada ahaw, ama muslim ahaw, ama waxa weeye faasiq ahaw, ama cadli ahaw, ama mid wanaagsan ahaw, ama mid xun ahaw, mid lab ahaw, mid dhadig ahaw, mid yar ahaw, mid weyn ahaw.
mid marka caqli la ahaw mid safiiho wax magarada ahaw isku wada mid baa tihiin codkana waa siman tihiin mid waliba hal cod buu leeyahay muslimiintu waxay yaqaaneen maaha shareecadana meel kagama taal afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun dhammaan waa siman yihin bay ku leeyihin yacni muslimkii iyo mujrimkii waa siman yihiin muuminkii iyo faasiqi waa siman yihin ilahayna ma simin afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqa laa yastawuun waxay leeyihiin maya waa siman yihiinoo mid walba hal cod buu leeyahay ilahayna wuxu uhi ma sinna labkiiyo dhadigii waxay leeyihin waa siman yihiin ilahayna wuxu uhi walaysa dakaru kalunhaa iyagu waxay leeyihin may waa isku mid gabadhuna hal cod bay leedahay ninkuna hal cod buu leeyihi caalimkii iyo jaahilkii waa siman yihin bay leeyihiin ilahayna wuxu uhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ma sinna kuwa cilmiga le iyo kuwan cilmiga lahayna jahaalada ahy iyagu waxay leeyihin waa siman yihin mid walba hal cod buu leeyahy dumarkii waxaa la leeyahy soo baxoo guryaha ka soo baxa ilahayna wuxuu leeyahy guryaha ku sugnaada waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luula markaasaa leeyahy dumarka soo baxa ya ilahay guryaha ku sugnaaduu leeyahay dumarka yana waxay leeyihin soo baxa doorashada ku rida maya issharaxo markaa waxaabaad noqotaa yacni maamulada ka qayb qado tartan xubin barlamaan noqo madaxweynaha wax ka soo saar hadhowna wasiirnimo doono ma gurigaad fadhiyaysaa ka soo baxa guriga ninkaad la mid tahay maxaa lagu haystay haddaa siyaad barre haddii ninkiiyo gabadhu siman yihiin maxaa lagu haystay ila isba wuxuu hi ninkiiyo gabadhu waa siman yihiin ninkiiyo gabadhu ma sinna dumarka in loo taliyo la maamulaa shareecadu amartay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim raggu mas-uuliyadda inay leeyihiin baa allah sheega yagaa mas-uuliyadda la wax maamulaya yaga ayaa mas-uuliyadda raggu leh walilrijaali calayhina daraja raggu marka waxay darajay ka leeyihiin dumarka maya waa simayana mid walba hal cod buu leeyahay baa layna baraya waxaasi waa baatil shareecada meel kagama taha dimuqraadiya in la koolkooliyo ma aha ruuxaad kaba ka tolanayso waxa la kabihiisaa la eegaa dimuqraadiya hadday wanaag leedahay may gaala khayr ku gaadho waa kuwa marka ay ku banaysteen markaa raggu inay isguursadaan dumarkuna gaar isu guursadaan oo waddannada markaa waaweyne hadda marka waxa weye yurub qaarkood marka waxa la asixiyey oo laleeyahay legal weeye oo waa nidaam marka waxa weeye furan sida markaa ninkiiyo gabadhu isu guursan karaan baa labada nin isu guursan karaa labada dumar inay isu guursan karaan markaasaa liwaadkii iyo xumaanihii ku bateen ilaa ay gaadhaan markaa inay dadka isa soo sharaxaya inay la gorgortamaan oo ay yidhaahdaan xuquuqdayada halkaad marinaysaa codkaanu ku dooran ee dad badan baanu nahay in raggu isguursadama noo fasaxaysa mise nooma fasaxaysi ee xuquuqdiina waan ilaalinaya waan daafacaya waan ilaalinaya markaasaa la odhanaya loogu rido dimuqraadiya waa maxay xukunka shacab baa iskale weeyi isagaa wax xalaalaynaya isagaa wax xaaraantinimaynaya wuxuu shacabku xalaaleeya waa xalaal wuxuu xaaraantinimeeya waa xaaraan waa xukmu shacbi bishacbi ilahayna wuxu uhi in alxukmu ila lilah xukunka ilaahay oo keliya iskale almuxallil walmuxarim waa allah shacabkii waxay yidhaahdeen waxa ka naa'iba barlamaan shacabku ha soo doorto barlamaanka xubnaha barlamaan markay soo doortaan iraadadii shacabka waxaa laga garanayaa barlamaanku wuxuu doorto ra'yiga barlamaanku wuxuu matelayaa uu markaa soo saaraa ee bilaglabiya ku soo saaraa majority shacabku matelaya hadduu yidhahdo khamrigu waa xalaal oo sidaa loo bato waxaa la odhanayaa waa xalaal wallahu almustacaan marka waxa weeye weliba waxa dheeraada fitanka jira ayaa dheeraada dad fara badani waa laga yaabaa inay garanayn dimuqraadiya waxay tahay ay maqleenuun waa inay ogayn dimuqraadiyadu inay ka hor imanayso shareecada islaamka laakiin waa in la ogaadaa oo horta la bartaa in shareecada islaamka iyo dimuqraadiyaddu ayna iswaafaqayn iskana hor imanayaan mas-uuliyiintuna inay tidhaahdo dadnu dimuqraadiyaynu nahay waa arrin khalad ah waana arrin marka waxa weeye shareecadii ka hor iman ruux waliba wuxuu doonaha iska sameeyo kii qur'aan daaranayaana qur'aanka ha daarto kii markaa hees iyo yani qurun daaranayaana ha daarto waa arrin markaa baatil wey waxaa layna amray xumaanta inaynu reebno man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam ku kastoo arka shay munkara gacanta ha ku bedelo hadduu ku bedeli kari waayo afka ha ka dooriyo ha ku bedelo hadduu ku bedeli kari waayo qalbiga ha ka naco dimuqraadiyaduna waxay leedahay may adigu soo saa ma qabtid sidaada markaa waxa weyaan adigu u wado masjidka iska gal iska cibaadayso kii kiniisadda doonayaana kiniisadda ha galo labadii doona inay wada tuntaan ha wada tuntaan xorriyad bay dadku leeyihin xorriyatulictiqaad diintuu doonuu qofku qaadan karaa marka dimuqraadiye iyo diinta islaamka waa iska hor imanaya qofkii muslimkaa inuu gaaloobo looma ogola man badela diinahu faqtuluuhu baa nabigu yihi sala allahu alay wasalam diinta yaan been laga sheegin diintu ma qabto dadku markaa xorriyad ictiqaad inay leeyihiin oo wax alla wuxuu doono inuu ictiqaadiya u bannaan tahay hadduu doono kufri ictiqaadinayo ou caqiidaynayo hadduu doonana islaamnimo caqiidaynayo waxay diinta islaamku qabta maaha marka dimuqraadiya khayr kuma jiro intikhaabaadka iyo doorashadaasina waa fitna iyo baadi shar baynay xambaarsan tahay dad fara badani waxa weeye dhibaatooyin bay u sababtay oo gaaladu waxay doonayaan inay geliyaan beledo badan oo beledada islaamka ka mid a waxooda inay geliyaan bay doonayaan markaasay odhanayaan intay u qurxiyaan tan qaata nidaamkan qaato sidan yeela waxay muslimiin yaqaaneen ma aha dariiqyadii muslimiintu yaqaaneen ay wax ku dooran jireen
baa khayrku ku jiraa wax khayri kuma jiro dimuqraadiyadda kuma jiro fitan iyo shar badanna waa xambaarsantay waxa dheeraad ah dimuqraadiyad iyo qabyaalad baa isguursaday maxaad u malaynaysaa inay iska dhalayaan markii hore waa dimuqraadiya markii dambena waa qabyaalad labadii markay isguursadaan maxaad u filaysaa inay iska dhalayaan ma u malaynaysaa khayr inuu ka dhalanayo shar baa ka dhalanaya durbaan colaadeed baa la tumayaa ilaahay ha laga boqo durbaanka colaadee la tumaya ha la iska daayo khayr laga dheefayaa ma jiro ku cibro qaata beledada hareeraheenna ololaya maxaa hadda ka jira waxa weeye markaa muqdisho maxaa ka jira dadkii cabsi ku nool yihiin maxaa ka jira markaa ciraaq maxaa ka jira maxaa ka jira suuriya maxaa ka jira maxaa ka jira beledo badan maxaa ka jira ha lagu cibro qaato alcaaqilu man itacada bigayrih walaxmaqu man itacada binafsih waxaa la yidhaahdaa caqli waxa leh ka kayrkii ku cibro qaata oo ku waantooba walaxmaqu man itacada binafsih nacasna waxaa ka naftiisa ku cibro qaata oo waxaasi ay ka mallafan yihiin ilaa ay ku dhacaan markay ku dhacaan ayuu garwaaqsadaa qisooyin xikma ah maxaa la soo naqliyaa soomaalida qaarkood waxay soo naqliyaan dadka qaarkood oo markaa waxyaalaha fitanka a galay iyo qabyaaladaha iyo dagaallada kale lagu dagaalamayo iyo kibirkaas inay markii dambe isciilkaambiyeen waatay dadku ku mahmahaan aadan galaydh wuxuu yidhi adduuni khatal inankiisii baa inan dilay inankii markuu dilay ayaa laga kari waayey bal magtii adigu markaa hal bixi qaalin ku soo dar inta kale annaga ururinayna ciddii kalena waxaabay raalli ku noqotay inay magta qaadato markaasuu maanaa qaalin lay weydiinaya ha la yaabe kibirkaa iskale inankii baa yidhi aabba qaalinta iga bixi markaasuu ifka laguma ciilinay ma urkii hooyadii baa lagu dili jiray dadkii kalena waxa weeye dee way kala kaxaysteen geeloodii haddii ninkii dhalayba bixin waayey marka maxaanu annagu haddaa u bixinayna isagii baa laga bilaabay inankiiyo waa la dilay waa la isku baaba'ay berigii dambea la yidhi warran hadda aadanow wuxuu yidhi adduuni khatal shalayoo aan tamar hayayna tala ma hayn maantaan markaa tala hayana tamar ma hayo war mar dambaa la garan doonaa war hooy balaayo hor la qabtay leedahay daba la qabta ma leh war durbaan colaadeed yaa la tumi war amniga iyo nabadgelyadaa lagu joogaa yadaa wax lagu baranayaa yadaa lagu baayaco mashtaraynayaa yadaa lagu tarmayaa war haddii layscuno oo laysqasho tarantii meeday adduunyadii meeday waxbarashadii meeday nabadgelyadii lagu wada joogay meeday mabedero camiraanayaa jira war umuuraha ha la xakameeyo ha la qabto hadal fitno sababaya yaan la odhan dadka markaa waxa weeye dadka mas-uuliyiinta u ah ama ururo markaa ha ahaadaan guddoomiyeyaashood ama ha ahaadaan madax dhaqameedyo ha ahaadaan ama siyaasiyiin ha noqdaan noocay doonaanba ha noqdaane hadallada turxaanta lehee wax isku diraya aad iyo aad ha ysaga jiraan qad haya-uuka liamri low fadinta lahu dadkii waxay kuu diyaariyeen arrin haddaad u fiirsan lahayd yani waxa weeye weyn bay kuu diyaariyeen farba binafsika an tarca maca alhamali war naftaada kala yaqyaqsoo dadka liita inaad marka waxay la daaqdo war wax kastoo lagu hadlo dadka qaar ku hadlaanba ha ku hadlin war ruuxa mas-uulka ah iyo ruuxa markaa ciyaalo suuqi siduu u hadlayaan u hadlin war belayaan la fadhin waxba laga dheefi maayo dhib waxaan ahayn laga dheefi maayo aad iyo aad arrinka liisaga jiro hadalka aynu sheegnay ku saabsan doorashadani inaynay ahayn shay shareecada waafaqsan waxaynu leenahay mukhaalif lishariica haba noqotee hadday dhacdo inay cidi ku soo baxdo oo xukunka iyo talada ay qabato awooddiina gacanta u gasho dadkii racyad ka dhigto amniga sugto iyo nabadgeliyada qabashadaa talada ay qabatay ee dadkii sidaa ku aqbaleen ee racyad ugu noqdeenee amniga ku sugtay bay ku noqonaysaa yacni xaakim ku noqonaya ama madax ay ku noqonaysa oo madaxnimadu ku sugnaanaysaa oo xaakim sharciya uu ku noqonayo waayo saynu horeba u soo sheegnay wakhtiyo hore yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtidaa shaygu inuu sii jiro waxaa lagu dhaafaa lagu cafiyaa ama lagu saamaxaa in shayga la bilaabo waxaan lagu saamaxin iyadoo taladii awooddii gacanta uu ku hayo ruuxu haddii la yidhaahdo xaakim ma aha dee fitan kalea ka dhalanaya oo xaakim ha la raadiyo hala doono kane xaakim maahe ama madax maaha baa ka imanaysa taasina waxa weeye fitan iyo iraaqatu dimaa iyo dhiigagu inay daataan iyo amnigu inuu khalkhalo iyo dhibaatooyin inay yimaadaan bay sababaysaa shareecaduna masaalixday sugtaa badisaana mafaasiddana waa daafacdaa dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix xaalad ka daran baabay culammadu sheegeen oo ku saabsan xaalat listiilaa wataqallub cid awooddii maroorsi iyo xoog ku qabatay oo awooddii sidaa gacanta ugu gashay wakhtigii saxaabaday dhacday iyadoo saxaabadii nebiguba sala allahu alayh wasalam in badan isii nooshahay cabdulmalik ibnu marwaan siduu xukunka ku qabtay dee awood buu isticmaalay dadka xataa doorta ma odhan inuu awood dadka lagu khasbo oo lagu dirqiyo oo lehe wixii ka hor yimaadana waa la dagaalamaya dadkana saasaa racyad kaga dhigaya dee waa waxaan bannaanaynu xaaraana haddana markii ay dhacday oo awooddii sidaa gacanta ugu gashay xataa saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam bay cadaysiiyeen xadiiska saxiixulbukhaari ku sugan waxa uu sheegayaa in alla intii dagaalka iyo iska hor imaatinka iyo dagaalanku uu jiray cabdullaahi ibnu cumar qolana markaa ma ateecin qolana bayco ma siinin wuxuu arkaya fitna inay tahay maalintii ibnu zubayr laga takhallusay oo taladii gacanta u wada gashay cabdulmalik ibnu marwaan dadkii kale racyad ay noqdeen
maalintaasuu baycada dhiibay cabdullaahi bnu cumar oo culammadii saxaabada ka mid ah saxiixu lbukhaari bayna ku sugan tahay isagoo leh inii uqiru bisamci waataaca liamiiri lmu'miniin cabdilmalik ibni marwaan samci iyo taaca ayaan u qirayaa cabdulmalik ibnu marwaan oo amiiru lmu'miniin ah wa ina baniya aqaruu mila dalik ubadkayguna saasoo kalay qireen ruux kastoo sidaa khilaafo ubadkayga ka midana ilaa kaanat ilfaysala bayni wa baynahu isma sheeganno cid ubadkayga ka mid hadday saa khilaafto waa fi saxiix albukhaari marka waxa weye ala kulli xaal marka la leeyahay ariiqani sharci ma aha looma jeedo haddii cidi ay soo baxdo oo talada iyo awooddu gacanta u gasho oo dadkii raciyad u noqdaan isagina amniga sugo inaanu xaakim sharciya noqonaynin looma jeedo waxaa laga hadlayaa sida khayrku ku jira inay tahay siday muslimiintu wax u dooran jireen oo ummadda ahlulxalli walcaqdi inay wax u doortaan oo u soo saaraan markay abubakrin sidiiq saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam ay la baayactamayeen oo dooranayeen meesha lagu dooranayey gabadh quri ma joogin hal gabadh ma iman lama odhan zawjaadkii nabiga sala allahu alayh wasalam dumarka kale kuma jiraan lastunna ka axadin min annisaa'i in ittaqaytun yaga ha loo yeedho ra'yigooda ha la weydiiyo yaad taageeraysaan ha la yidhaahdo yaad ku talinaysaan ha la yidhahdo marwooyinkii nebiga sala allahu alayh wasalam marwooyinkii nebiga iyo ummahaatu lmu'miniin yagu xurmo gaaray leeyihiina u yeedha arrinkan ha ka qayb qaataan oo tale ha ka dhiibtaan ra'yigooda ha la qadariyo oo marka ha la eego lama odhan waxay ku camal falayeen in dumarku gurigooda inay joogaan ciddii soo baxdaana markaa u ah xaakim inantii nebigu u dhalay sala allahu alayh wasalam faatima binti rasuul cidi uma yeedhin hadda waa ina rasuul sala allahu alayh wasalam xaraf lama su'aalin arrinkan dumar shaqo kuma leh cinda alislaam oo gabadhi madaxna ma noqoto madaxna ma soo saarto lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a marka khayrku wuxuu ku jiraa sidii muslimiintu wax u dooran jireen laakiin looma jeedo haddii cid marka ay soo baxdo oo amnigii ay sugto dadku raciyad u noqdaan xaakim sharciya noqon maayo loogama jeedee ciddii amniga sugtaa oo nabadgelyada markaas sugtaa oo dadku raciyad u noqdaan wuxuu noqonayaa xaakim sharciya sidaas yadaa weeye laakiin khayr inaguma jiro tane sida khayrku inoogu jiro inaynu u noqonnaa inoo eg gaalo inaynu raacno ku dayanno wax khayra inoogu jira ma jiro man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum waa digis laynooga digaayo tashabbuha gaalada la shabahayo laysu ekaysinayo aayaddan lafteedana waa laga qaadanaya tashabbuha gaalada in la diidayo walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma ja'ahum albayinaat أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية ذو سيدان وكلا وحيدي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد